salaadiinta cuqaasha iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Buro ayaa cambaareeyay odayaal sheegay inay matalaan oo carrabaabay inay ku qanceen saamiga shidaalka ayna ku tilmaameen inaanay matalin deegaanadooda waxaanay kaloo ka hadleen saami qaybsiga shidaalka oo ay ku tilmaameen loo maamulay suux waxaanay xukuumadda ugu baaqeen inay dib u eegto saamiga shidaalka waxaana hadaladoodii ka mid ah jaraa'id halkan lagu qabtay anigoo caaqil jaamac Aamir Gaas anigoo ku hadlaaya waxaan halkan ka cadeynayaa nimanka shirka jaraa'id qabtay ee isku magacaabay inay ummadoo dhan matalaan isu ekaysiiyay annagu marka hore beel ahaan cuqaal ahaan odayaal ahaan wax kalsooni ay naga haystaan ma jiraan annagu cidna ma sheegano cidna shir jaraa'id intaanu qabanno magaceeda kuma hadallo nuxurka ujeedaduna wuxuu ahaa shirka jaraa'id ee ka horeeyay shirkan jaraa'id ay qabteen nimanka sheeganaya gudida habar jeclo in looga jawaab gudida habar jeclo waxa laga soo doortay gar adag waxaana mandate-ka la siiyay oo ahaa muddo 3 sanadood muddadii 3 sanadood ahayd way dhamaatay ujeedo shir jaraa'id tartiib waxaanu taageersanahay waxqabadka iyo dadaalka xukuumaddu wado waxaanu kale oo taageeraynaa soo dhaweynayna cid kasta oo horumarka dalka iyo dadkaba wax ku soo kordhinaysa haddaanu nahay beesha Gaashaanbuur Axmed Faarax waxaanu ka soo horjeednaa shirkii jaraa'id ay qabteen ragii sheegtay gudida beelaha habar jeclo gudidaas oo aanay beeshu aqoonsanayn kana mid ahayn kalsoonina aanay ka haysan